wiilal mooto laba dhinac ii soo saareen gacmahayga iyo afkayga qabteen kadibna ii sheeg cadday saa'id u daareen aniga dadkii inuu ay maqli waayeen kadib way kala firageen daarsanaan juq dambe i geliyeen meel ka baxsan ma jihada meel kasta waxa waayo duhur iyo cidla kaliyo mugdi kaliyo ay meel jihada iga jira waaya waxaan ku suganahay saldhigga degmada Yaaqshiid waxa geeskayga midigta fadhiya gabar Soomaaliyeed taa oo loo geystay kufsi wadareed oo ay u geysteen sida ay noo sheegtay afar rag ah waxaan ka wareysan doonaa sida ay wax u dhaceen ugu horeen bal sidee wax u dhaceen nooga warbixin aniga horta waxa u imaadina mobile sameysto wiilka mobileka xoodhahay shaashada ana ii saaraan taleefanka biyar waayahay halkeed mobileka ka sameysanaysay suuqbaadan ka sameysanaayay waa tahay kadib maxaa dhacay kadib wiilka adiga mobileka handa ii sameey waxay biyar iyo gaari ii sameey shaashada laga bedelaa oo shaashada meeqa waa $35 ma awoodiyaan dhahay wax kale ii sheegaan dhahay waa gartay adigu waxaan taleefanka iskaaga sabarka tamaga shaashadan ka sii waan dhahay sidiis iiga shaashadeed hore iiga waxaan dhahay ma bedeli kar taleefanka waa ka sabri kartaa hoo dhahay ma ka sabrayaan dhahay aniga kadibna xoogaa iyo waxyaabaas ama isoo galay ana waxa sameeynaa waaye ama balskaal warqadan xasra daalor dambi aba galo saay taasna ku munaasib aska tartiib oo soo diga ina ula taaray wiilku hada isoo gal wuu kala tuurshay iska dhahay dadka aanu dil war dadka iga calcelin aan taleefanka ina ka baxsan marabinaan hadda waxaan soo laabtayna mobilkiisa marka lacag helo uu imaado kadib mobilka waa laga qaaday waxaan isna siiyaayo adna kuma siiyay mobilka lacagtiisa kadib aniga waxa sameynaa waaye waa iska soo baxay mooto soo qaatay xaanday faraxgay hali baronda hala haystaan faraxgay aande dib malaana ku wada soo bax iska soo raac wiilkii aanimi oo wiilkii saaxiibay ahayaan ma ogi marka mooto soo raac oo iska sheegay waaga soo baxay mobilka ku celiyaa marka xaanda marabiyaan kadibni inta la gaar xasan meesha daabad ka sii sido labada wiilal mooto laba dhinac ii soo saareen gacmahayga iyo afkayga qabteen kadibna ii sheeg nal smaacadday saa'id u daareen aniga dadkii inuu ay maqli waayeen kadib way kala firageen daarsanaan juq dambe i geliyeen ma qof ay ahayn afar ahay kii ku jiranay shan ahaayaan kan kala mobilka wax ma wiigo sameeyay uga ahay asaabi dhahay baxso asaabi dhahay meel ka baxsan ma jihada meel kasta waxa waayo duhur iyo cidla mugdi kaliyo ay meel jihada iga jira waaya waa tahay mid ka baxsan ku dhahay waa kee kan mobilka haya asaga wax ku geystay dhibaato maya asaab la delivery iska baxsan waxa sameeyay saddex markaas kadib maxaa inta kula socoto daarsanaan kula tagto meeqa rag ahayn afar ahaayeen afartoodii ma ku dhibaateen masaal qof kaliya kulooda gacmaha way inay qabteen dhawaateen waxaan walaashiin kalaay hooyadiin kalaay ilmaha dhili doontiina ahaadaan sidaan ha ay galin walaalihiin kala ay xismeeya haye yaa ku soo qaaday marka wiilasha afartooda isoo raaceen askari karina aan arkay aniga askari markuu wareysnaa mooto noqtay wiilasha wada degay anna ka booda mooto meesha ugu degay askari gadaashiisa dambaatay aan askari oo dadkan fiisiga iga durteen askari waa ka nimanka ay qabo aday gabartan tuugaan tahay mobilka aniga u laabto wax masiilahaynaan dadkii ka soo wada egihiinaan taleefkiisa noo yeesto wax dhantaaleeno iska soo bax gurigeena aad rabay iska soo baxaa rabaan waa sidii xaafadiina ku timid marka xaafadiina askariga ay keenay askariga isoo wadayna shaqadii Yaaqshiid ana dhanaxtini booqa ay ku furnay oo hadda nimankii dibku ku geystay shaqadii Yaaqshiid ay ku jiraan yaa soo xiray aadan wallahi waxa ugu mahadnay yaxdin mahay aad ugu mahadsan boqolkiiba boqol maxaa si gooni u dalbanaysaa marka nimankan ay sharciga oo xaqina iiga raadiyaan ardalbadaan oo waxay u sameeyeen waliga argudo aniga walaashooda kala 60 ana oo ana calo iga maqli waayeen iyo haraantii fee jirkayaan ku haraantii fee waxay ka reesteen malahan ku dhaad ana walaashiin kala xishmay ana biyisiinayeen kaabeeyay igu bilbil inta ugu jejeysana waxa sameeyay marka waa ilaahay waxaan nafta mar leh miga qaadido sidoo kale waxa geeskayga midigta aan fadhiya maama dhashay gabadha la dhibaateeyay waxa ayna dalbanaysaa cadaalad inay u hesho gabadheeda sidoo kale waxa ay nooga warbixisay koriisimaha iyo dhibaatada ay ka soo martay gabadheeda meeshaan waxa ka hadlayaa gabadha dhibanaha hooyadeeda aan ahay wallahi inaan been sheegaynin aniga ilmeyga aabahooda yimiday gabadheeda waxaan u soo diray aabaheeda way la joogtay maasha Allah gabadheeda telefoon ay soo qaadatay aabaheeda biyo ridaas isku naxday suuqaadu soo qaaday gabadha dhisaayda leeyaga dhibaneeyay waa iga silciyeen waa iga rafaadsheen bajaajay soo saartay meel
xun oo cidlahay geysteen oo saxaraa hadday ka soo cararto way ka soo daba ordeen gabadheedu way iga silciyeen waa kuwis istaageen gabadheedu way iga xoogeen gabadheedu wallaahi bila tala inaana been sheegeen anaa haystaan ana dhalay gabadheeda anaa soo korsaday aabaheed maasha allah asna laftigiisa garab waana siiyay eedadeeda sidoo kaleeto garab waa igu siiyeysa laakiin wallaahi xanuun badan anaa ku soo korsaday gabadheedan anaa haysan jiray ilaahay wuxuu ila ogaa rasuulkiisa ila ogaa gabadheeda ilmaha oo nimankan waa iga silciyeen hadday cadaalad jirto oo cadaalad jirto gabarteeda cadaaladaha loo soo qaado gabadheeda cadaalada u baahanahay gabadheeda gabar yaroo hadda soo baxaysa waaye nolol ma taqaano hadday indhaha soo taagaysay gabadheeda niyaday ka dileen nimankan xaqeyga haleegaga soo dhacsho haddaa hooyo ahay gabarteyda xaqeeda halay soo dhacsho xanuuna ay haayo waa silicsanahay gabarteyda xaqeeda u baahanahay haddii dowlad jirto dowladaas gabarteyda xaqeyga ha igu soo dhiciso aadaan ugu mahadcelinayaa ciidanka dowladda Soomaaliyeed booliiska gaar ahaan degmada Yaaqshiid taliyaha saldhigga iyo askartii soo qabatay dambiilayaashan gabadheeda u geystay kubsi wadareedkan aniga waxaan rabaa cadaalad sharciga in aan ila waafajiyo gabadheeda dhibka loo geystay xaqooda la gudo oo sharcigaas diinta islaamka wax ka baxsan ma rabo xeer ma rabo xukun aan rabo gabadheeda waxaan rabaa cadaalad sharci baan u rabaa annagu waxaan nahay dhibanayaashii gabadheena dhibkaa loo geystay ayaanu nahay waxaa marka hore mahad aan u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waafajiyey taliyaha saldhigga Yaaqshiid macallin aadan iyo gruubkiisa oo roondadii ay wareegayeen iyo mataqaanaa ilaalintii ay degmada iyo xaafadaha ay ka sameynayeen ayaa ilaahay ku asiibay oo ay qabteen nimankii falkan gabadheena u geystay taliyaha aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa wanaagaas iyo mataqaanaa ilaalintaas deegaankiisa iyo dadkiisa iyo degmadiisaba ugu hayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka sokow ninkaas waxa weeyaan ayaan saldhigga inoogu soo xiray waxaanan ka rabnaa maadaama wanaagaasi uu noo geystay oo afartii nin ee gabadheennii dhibkaas u geystay in uu CID iyo maxkamo iyo ma garanaysaa meel kastaba inuu nala gaaro alxamdulillahi rabbil caalamiin arrin aad u naxdin badan ayaana qabsatay gabar baana laga kufsaday nalaga faraxumeeyey dhibaato badan baana gaartay taliyaha saldhigga Yaaqshiid macallin aadan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa bacdallah sharafta ay sameeyeen booliiska Soomaaliya booliiska degmada Yaaqshiid Yaaqshiid waa ku dhalanay waana ku barbaarnay waxaan kalena weligeena maana arkin laakiin annaga maanta waxaan uga fadhinaa oo ka rabnaa sida sharafta lahayd oo uu maaragtay howlgalkiisa ugu guuleystay inuu noo dhameystiro cadaalad baan deeqda cadaalad baan rabnaa ilaa iyo meesha ugu dambaysa inuu nala gaarana ka codsanaynaa howl suluxa iyo aan nala gelin iyo musuqmaasuq aan nala gelin annagu deegaankan uma dhalan laakiin Soomaaliya nin walba meel buu ka degan yahay waxaan rabnaa cadaalad baan deeqda gabadheena way dhiban tahay nin walba oo dhibka u gaarana waad garanaysaa uga dhiidhin lahaa ama uga dhibaatoon lahaa taliyaha waxaan ka codsanaynaa